skinkeyga diyaar iska life ma la shidaay ya life ma shidan sama ma life ma shidan hadda weli ma shidan laakiin mar waa shidan ayna waa la mid taasoo raasan diyaar tiza وهذا هدي أنت أن كل دافنو هاستي خضن عبد الرحمن يوحنا معان هلا كانت كلا سعوتنا هو إذا عدا الصومال وين إنك ساعدوا وشنتي والله بتقمن وحنا لسوق رحلقي أن إذا سوق بنترني لا مشكلة أرمها وشذا إياه قناع سجا وكان أحمد aad u mahadsantahay ikraam dhageystayaal waa waqtigii aan idin soo dan jirnay barnaamijkii arrimaha bulshada iyo ganacsiga ee raadiyo Soomaali weyn halka aad naga dhageysanaysaan haddaan dib idin xusuusiyo waa raadiyo Soomaali weyn ota barnaamijkana dhageystayaal maanta wuxuu ku saabsan yahay xilliyadii dambe waxaa ku soo batay tuulada Trollhättan ee u dhow magaalada Göteborg in familiyo Soomaaliyeed caruurtii laga qaatay barnaamijkeenan maanta intiisa badan wuxuu ku saabsanaan doonaa hadduu eebba idmo sida loogu barbaariyo caruur lagu dhalay Sweden iyo waajibaadka looga baahan yahay waalidkii dhalay caruurtaasi waxaa barnaamijka maanta ku martay Yaasiin oo ka tirsan mid ka mid ah xisbiyada dalka Sweden isaga ayaa idin sheegi doono taariikh nololeedkiisii iyo si toos ayaan barnaamijka u soo gali doonaa Yaasiin waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka arrimaha bulshada ee raadiyo Soomaali aad baa mahadsan tahay ma sha Allah Axmed aad baa mahadsantihiin inaan fursad u helay inaan maartay idin imaado wada hadal loo sheekeysano oo war iyo arrimo isdhaafsano oo maartay waxaan rajeynayaa bulshada inay nagu xiran tahay bulshadana soo wacdo runtii iyagoo su'aalaha markaas ay qabaan runtii na weydiinaya insha Allah wata Yaasiin adiguba waad ka qayb qaatay anagana sidoo kale waan tagnay in barnaamij lagu qabtay magaalada Trollhättan oo ay Soomaali badan waalidiintuba haba u badnaadaan ee ka cabaadayeen in caruurtoodii laga qaatay marka sharciga Sweden xuquuqda caruurta ay leeyihiin iyo waxa laga rabo waalidka balaadaha siyaasi intaas nooga xeeldheer bal nooga faafaa caruurtu حقوق نوعية دلكان سويدن إليه ولا هرت حقوق مرك أهان مرك لفيري حقوق فربضان بيليهن عرورتا وكلا دوان أو نوعية فربضان له حقوق ذا أنت أنا الجارم به هرت ودن كان ضد فربضان وحاجرة ضد بدن وحاجرة معناها سويدشة أو ودن كعرور كل عليه iyo kuwa xataa ajnabi dhamaantood dhibaatooyinkan way qabaan macnaha dhibaatooyinkan waxa anagu kali ku nahay maaha oo ayna yani yeena isliin waa wax anaga goon ahaan layna ku raadsanayo marka laakiin caadiyan yani ciyaalku xuquuq fara badan bay leeyihiin macnaha waalidku caruurtii wuu dhalay laakiin macnaheeda maaha macnaha ilmihii wuu leeyahay oo lahaasho qofkii yani wixii waa laakiin malihid sharci ahaan marka la fiiriyo heshiiskan bond convention ka la yiraahdo ama caruurta ma garanaysaa iyo kan wadankan Sweden labadaba marka la eego labaduba macnaha waxay xuquuq siinayaan runtii waalidka yani ilmaha macnaha waa ilmuhu xuquuqda ilmaha uu leeyahay baa inta badan la sheegaa laakiin dad fara badan baa waxay u fasirteen si kale cabsi kale timid oo waalidkii in ay ciyaalkoodii ay ka baqaanba qaarkood macnaha ma dhahayo dadka waalidiinta oo dhan weeye laakiin waalidka qaarkiis baa waxaa dhacday macnaha in ay ciyaalka ka baqaan oo barbaarintoodii ay halis gasho marka waxyaalahaasi tan macnaha inaanu ka hortagno waay macnaha hadda heshiiskan caruurta ama caruurta bond convention ka la yiraahdo wuxuu leeyahay caruurtu waxay leeyihiin xuquuq isla markaasaytina waxay leeyihiin yani mug kasta ama waxay leeyihiin yani inta xuquuq oo qofka qaangaarka uu leeyahay ayay iyaguna leeyihiin
ma garanaysaa wax kasta oo la samaynayana waxaa aas u ah ilmaha wanaagooda yani waa in caruurtii wanaagoodii laga taliyaa ilmihii caruurtii wanaagoodii baa wax kasta wuxuu u noqonayaa aas ciyaalku waxaa lagu leeyahay marka Bonn Convention wuxuu leeyahay ama caruurta heshiiskaasi loo galay ee United Nationska wuxuu leeyahay macnaha alla Bonn hore recta utrikas sin meaning macnaha ilmaha inaana la afduubin inay maskax leeyihiin inay bini aadan adigoo kaleeta ah ay yihiin macnaha size-ki unbuu kaa yar yahay maahe oo maskaxdii way soo kobcaysaa laakiin in aad ula dhaqanto sida qof bini aadan ah oo xuquuq leh weeye macnaha xataa haddaad dhashay sidaasoo kaleetana la ixtiraamo fikirkooda xitaa haddaa adigu maalaa yacni u aragto ilmaha waa inaad qalbiga u dhistaa niyadda u dhistaa macnaha ma garanaysaa qof bini aadanka niyaddu ka socdaa macnaha qofka hadduu niyaddii mar hadday niyaddii ay baaba'do qofkii waxaa weeye waa dhimanaya waa wax dadka bini aadanka inta badan macnaha dadka caddaanka ah ay nafta isaga qaadaan markay shaqo waayaan yacni waxaa ka dhunta rajadii baa ka dhunta ma garanaysaa sidaasoo kaleeto macnaha ilmuhu markuu isdhiibo wuxuu halis u yahay in uu waxyaalo kale oo aadan adiga ugu talagelin in uu faraha la galo oo ay ka mid tahay crime-ka macnaha waxyaalaha dhaco iyo daroogada la gado iyo yacni saaxiibta ay dadkaanayta madaxa u salaaxayo oo ku ag wareegsan dadkaasaytii baa si sahal ah gacanta ugu gelinaysaa oo kaa duufsan kara ilmihi waa tahay yaasiin adigu waxaa tahay aabbana waa tahay caruur halkaan Sweden waa ku joogaan sidoo kalena macalinna waa tahay haddii aan sii badiyo arrintaadana caruurna waa haysay oo qof wax badan og ayaa tahay marka waalidka Soomaaliyeed maxaa looga baahan yahay inuu caruurtiisii uu halkaan Sweden uu ku barbaariyo waalidka Soomaaliyeed maxaa looga baahan yahay adoo eegaysid sharciga Sweden sidoo kalena sidii ay ku soo korin jireen waalidka Soomaaliyeed sidii dhamaantood lagu soo koriyay dalkii labada baad isku dheelatiraysid isku firfirinaysid maxaa looga baahan yahay waalidka Soomaaliyeed waalidka Soomaaliyeed waxyaalaha looga baahan yahay waa halkan marka la joogo wax badan weey anagu waxaan nasiib u yeeshay inaan ku dhasho kuna barbaaro waddanka Soomaaliya xilli waliba ay dawlad jirtay oo kala dambeyn iyo ay jirtay baan muxuu ahaa ku soo koray marka waalidkii iyaga ahaa oo soo koriyay waxaa la joogay dariska iyo dadka macnaha waxay ahaayeen dad isku wada diin ah isku af ah isku dhaqan ah يعني هل مال نقول الجوجا ما أنت هو يدا هديه كعلي سبري هو يكلا تكعلني ساعد عذير بكسو علنا عبتي أما قف كلا يعني ودن كي سوسايتي ودن كي أردن باوحون نقضي هل يعني وحير عريري أو كوبن ما أنت أدون كي أردن باوحون نقضي عريري يعني وحيالا الماء هذا كقرن جرتيبا ما أنت وحيكوه لا ينسي سهلة يعني هذيك قريبا كو حيران لاقن هيت معناها يربا كو حيران قف كاور قبت ماله يعني كريمدي كورقبكي ديشي wax walba macnaha adiga waalidka aabay kusoo dul kortay marka horta waa adag tahay oo waxaan maleynayaa waa la dagaalamaya daa'irada ilmaha saa u koriye macnaha waa wax sensitive ah macnaha xasaasi ah oo aanan la dhihi karin waalidka sidaa samee laakiin waxaan siin karnaa fikir annagu iyo waliba dadka kale ay la tahay in wax lagu badbaadin karo qaas ahaan kuwa dhalinyarada ah oo caruurta ah oo hadda wax ka maqlay in badan baan maqlay Soomaalida ciyaalka inta hore waxay dhahan caruur waay oo caruurnimadii ku sii daayaan ilaa uu hadhow ka gaaro 10 jir iyo in ka badan أنا عيال إسكسو كوري أو أنا رولز أما مارتي وحيال الريجلر أو قان معنا ما شروع كسو كورين مركات تونجر بان مارتي هذا الربعين مارتي لذا بدأ وآسو معقول ما معنا جيت كدوق مركه ورا بقلوع كو بربارو توسنتي هذا استرا توسي وجبايا وعدكتها أدبي وعدكتها معناها والد والبا إسقى حر waxaan rabaa inaan ku celiyo macnaha waalid walba isaga xor ah sida uu ilmihiisa ku korsanayo laakiin anagu waxaan siin karnaa waxa ay nala tahay ilmuhu horta sidooda waxay caafimaadkooda uu kor u soo kacaa marka ay helaan
guri qaanuun iyo kala dambeyn iyo muxuu ahaa sharuudo ay yaalaan yani wuu og yahay macnaha qof ku khaldamaysa male cunugaasi wuu og yahay waxa laga rabo dadka qaangaarka waaweynna waxay og yihiin waxa ciyaalka laga rabo ilmahayga waxaan ku iraadaa war anigu wax kale kaama rabo runtii aabbahay hooyaday baa soo dhihi jiray geeli ari kale baa ay raacaysaa baa lagu leeyahay orda iskuulkaaga aad yani shaqo kale la iima diri jirin aanan ahayn iskuulka maalintay dacwad ka timaado aniga iyaga waxa weye dagaal bay ahaan jirtay ma fahamsantahay yani sida aniga aan markaan baxo aan shaqo uga shaqada markaan helo macnaha ama shaqada aan u aado mushahar aan u helo ayaa ciyaalkuna iskuulkooda waxa uu yahay sida adiga shaqada kuu tahay ma garanaysaa mushaharkoodu waa maxay marka mushaharkoodu waa guri inay helaan cunto helaan caafimaad iyo maaragtay ka warqab helaan jacayl lagu soo koriyo jacayl ay helaan nacnacooda iyo faakihoosigooda iyo ciidaha iyo maaragtay inay helaan yani waxyaalahaas oo dhan bay u badan tahay hadda kahorba waxaan la sheekaystay nin Swedish markaas wuxuu yiri ilmahaaga sidee ku korisay baa la yiri markaas wuxuu yiri ma aragtay sida ay dadka xayawaanka isticmaala sida hadda waad aragtay eyda qaar baa police ah way yaqaanaan sida loo sheego macnaha wax walba yaqaana waa military oo kale ta lagu soo koriyay marka wuxuu yiri waxaan fiirsan jiray sida eyda loo koriyo oo dadka militariga ay u koriyaan marka eygu wax badan kaama rabo marmarka qaarkood madax hadda u salaxdeed wuu qanacsan yahay marka wuxuu leeyahay isagu marka sidaas oo kale waa marka anigu ma doonayo ilmahayga inaan eel ku tilmaamo oo ka horsi ama ilmaha Soomaaliya ay ku tilmaamo laakiin wada hadalkan ku sheegay macnaha taas waxaan kala baxay marka sheekada ninkaas waxaan kala baxay yani ilmuhu ma u baahna wax badan in aad taada ku wadid oo taada ay qaataan oo taada ay helaan marka hadaan ku soo noqono ilmuhu waa inay og yihiin gurigaasiti kala dambeynta ay socoto tusaale ahaan marka ay gurigo kaleeto waa inaad leedihiin waqti aad wax cuntaan oo reerka oo dhan miiska ay soo wada fariisanayaan ama waqti aad leedihiin isbuuci ama labadii isbuucba maalin hebel saacad hebel saacadaas inta u dhaxaysa intaas waxaan u baahannahay maaragtay inaan waxa sameeyno xitaa wixii hadaysan jirin in la yimaado just la iska wada fariisto wada fariisigaas la fariisanayo ilmaha ma og tahay waxbaa ka soo baxaya yar oo adiga markaasii aadan diyaar xataa aadan u ahayn kuwaas baad qabsan kartaa macnaha waxaad ku qabsan kartaa si sahla oo maskaxdoodii baad xadaysaa يعني adiga waalida ilmaha waa sirsiri kartaa waa sabi kartaa sir ma aha tii beenta la isu sheegayo Soomaaliya kale ma aha laakiin waxaad ku sasabi kartaa in aad sida adiga aad rabto waalidka ah ay yeelaan ma garan kartaa inaad waqtigaas aad wada fariisataan aad iyo aad bay u baahan tahay lacala haday dhacdo aabaha iyo hooyadu lacala haday dhacdo inay qalad galaan ama waxyaalo ilmahaas uu rabay ama ay awoodeen ama laba caruur xataa u kala eexdeen iyagoona ugu talagelin waalid u eexanay ma jiro haduu arko aabaha ama hooyada inay qalad sameeyay inay dhihi karaan hooyo iga raali oo waan qaldamay ciyaalkii maxay garanayaan in aabihi hooyo ay qaldami karaan sida iyaga ama isaguba uu u qaldami karo oo cunugaasita marka waxa u sahlanaanaysa marka uu dhibaato uu sameeyo ama dhibaato ay ku soo gudbo yani inuu qofkii dhaho iga raali aho garanaysa iga raali aho inuu dhaho iyadan aad bay u baahan tahay aad bay macnaha u baahan tahay macnaha ciyaalka inay ay bartaan meesha aad ciyaalka tusaale marka ciyaalka aad leedahay waxbaad u diidi rabtaa waxa isku dayda inaad ka ilaalisid kelmadda maya inaad tirahdid oo qayaxan oo qaleelka ah macnaha tusaale ahaan cunugii baad aragtay kubad ku garaacaya derbiga ama guriga dhexdiisa ma garanaysaa ilmaha energy baa ka buuxa cuntaad la siiyey energy fara badan marka waxaad dhihi kartaa war kaalay aan ku kaxeeyo meeshaan aan ku geenaya adna kubadaada ciyaar annagana guriga yuusan naga jabin noo ilaali ma fahamsantaa ciyaalka marka tiisiina wuu helay dantiisiina wuu helay adigana gurigi waa ku badbaado muraayadiga ama jabin macnaha inta aad dhihi lahayd may ha sameeynin yani ilmuhu waa inay helaan alternative kale macnaha dariiq kaleeto oo ay ku dhaqmi karaan ma garanaysaa marka ku soo daayo adiguna maaragtay iso socod waa tahay su'aalahayga dambe waa ku weydiin doonaa laakiin hal su'aal ayaan ku weydiinayaa oo daawadayaasha mid ka mid ah uu ku soo weydiiyay Cabdinaasir Maxamed Xaaji oo ku magac dheer Qochafay ayaa wuxuu ku weydiinayaa sidee loogu hortagi karaa carruurtan in la qaato hana lagu xalin karaa
cabdi naasir waa ku salaamaya walaal waxaan ilaa hadal baan iska galay dhammaan soomaalida meel kastoo aad joogtaan kuway dhegaysanaya kuwa aan u helaynin fursadda inay dhegaystaan dhammaantiin waxaan leeyahay horta ciid wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iga raalli ahaada anigoo kacsan baan iska soo galay xoogaa waan soo daahay walaal horta waxaa caruurta qaadashadooda keenaya الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد إن شاء الله مركب waxaa kala durkay waalidkii iyo cunugii soo cunugii ayaa waxaa laga yaabaa marka inuu been iska alifto laakiin waxyaalahan hadda aan soo sheego kaleeto haddii aad ka bilowdaan oo barbaarintuba aad ka bilowdaan micnaha heerka markaas ay marayso oo ah yani cunugu inuu xuduud helo tusaale ahaan anigu ilmahayga waxaan ku bilaabay inaan lacag siiyo iyagoo 5 sano meel 4 sano 5 sano meelahaas waxaan uga bilaabay 5 karoon inaan siiyo 5 karoon waxay goyn jirtay xilligaas 2 xabo 3 xabo nacnaca ma garan kartaa anoo og inaysan 2 xabo 3 xabo nacnaca ay isku filnayn waan u soo geli jiray nacnaca kasta waxaan dhihi jiray waxaaga adaa iska leh ma garan kartaa intaasay taad leedahay intaas ama muxuu ahaa ama hal mar isticmaal ama beeqaami ama maaragtay meel dhigo aday ku jirtaa shaa ilmihii waxay ku tababaranayaan in ay lacagtooda ama waxooda ay ilaashadaan fahamsantahay waxaan aad ubad wey adigaa dhalay maskaxdaad ka xadi kartaa magarata ilmuhu marka uu arko oo aad kala tashatid dhaqaalahaaga sida uu yahay adduunka waxaa weeye dadka ugu loyalty marka la dhaho macnaha kuu soo jeeda oo yani dhib kastoo ku haysa kula socon kara waa caruurta marka ay ogaadaan waxa ku soo gala aad tirahdo war aabbi waxaana na soo gala ma garanaysaa sidaa bay ku kala baxaan qalaas waxaa jira program Swedishka oo aan fiirinay cunug yar oo 16 jir ah waxaa loo dhiibay mushaharkii hooyo single ah baa dhashay qaarkoodna waxa way aaba single programku waa taxane marka midkan hooyadan ku sheegaya hooyadii marka waxaa la siiyay wiilkii kaarkii hooyada lacagtii akoonka ku jirtay oo dhan baa faraha laga saaray magaranaysa waxaa la yiri guriga karidiisa bixi korontada bixi telefoonka bixi yani cunuga markuu arko oo wixii uu bixinayo isaga wuu dareemayaa wuu arkayaa macnaha lacagta guriga si uu kala baxayso cunugaas marka lagama yaabo in uu adigana ku xado ma garanaysaa isla markaasaytina uu wax kaleeto uu maaragtay maneeno iyo lacaga kaleetana uu raadsado markaas wuxuu garanayaa ilmaha in aad adigaba ku qanacsan tahay xoolahan yar oo aad haysatid aad ku qanacsan tahay isagana intiisa yar buu bilaabayaa inuu ku qanco runtii Soomaalida inta aan ka maqlay anigu ciyaalku waxay ku dacwoodaan reerkaana dilay wadankan waa ka mamnuuc ilmaha inaad dishid yani inaad dishid oo korkooda aad garaacdid waa mamnuuc weeye ma garan kartaa laakiin taas micnaheedu ma aha ilmuhu wuxuu doona ha sameeyo ma aha micnaheeda awood kasta baad leedahay micnaha inaadan dilin gacantaad qaban kartaa qol baad ku soo xiri kartaa yani ama qol buu geli karaa ilmaha markaad tiraahdo war orod wajiga iga qari kuma arki kare waxan baad samaysay iga qari wajiga iga tag qolkaasay ilaahu 10 daqiiqo ahaato ama 5 daqiiqo ahaato 5taas daqiiqo waxay u la mid tahay 5 bilood adoo qol ku xiray ma garan kartaa wata yaasin oo barnaamijkan maadaama waqtigii uu aad noogu yar yahay barnaamijka xigana 5 galabnimo uu bixi doono su-aashadan u dambeyso adoona soo koobaysa yaasin waqtiga oo kaabiga nagu haayo waalidiin ayaa caruurta laga qaatay xanuunka ay leeyihiin adigana siyaasigoodii ayaa tahay waa dareemi kartaa hooyo Soomaaliyeed oo aad u naxariis badan oo san ognahayba hooyo la mid ah inaysan jirinba hooyadaasi sidee caruurteedii ku soo ceshan kartaa waan arkay waan ka qayb galay magaalada hadda Trollhättan aad laftaada carabawday dhowr mar baan ugu tagay anigoo iskay u socda oo xisbi iyo meel kale tan aan ku soconin runtii si shakhsi ah oo private ah baan ugu tagay xitaa ceerta iyagoo la kulmayaan la galay gudaha oo wixii baan soo dhageystay dhibaatada horta ugu badan markay waxaan kugu dhacaan waalidiinta waxaan dhihi lahaa ha qarsanina sheega waxa aad qarsatid maaragtay adigana way ku qarsadaan dambi adiga aad samaysay maaha cunuga hadduu ku dacweeyey maaha dambi adiga aad samaysay marka kaalmadii aad heli lahayd iyo dadkii kuu soo gurman lahaa oo dhan baa adigana kaa cararaya macnaha kaa cararayaan ku dhihina baa kaa maqan marka garab ma haysatid
dadka garabka ku ahaan lahaana waa Soomaalida dadka walaalaha wey way jiraan mid iyo laba banaanada kaaga sheekaysta laakiin kuwaas ha u bixin waa damiir xumo weeye qof dhibaato haysta in banaanka laga sheego aad bay u xuntahay wax fiican maaha laakiin waalidiintu waxaan dhihi lahaa qarsanina isla markaasaytana la shaqeeyo qolada ceerta muhiimkeedu anigu ceerta socialka kuwa caruurta qaatay inta badan baaritaan bay waalidku ku sameeyaan marka baaritaankaas ha u arkin wax tartan idinka dhaxeeya adiga iyo dawlad haddaad la tartamto kolley adaa maaragtay guul daraysanayo because waxay ku isticmaalayaan awood muruqyo dawlad bay ku isticmaalayaan marka la shaqee muhiimkaaguna hadafkaaguna ha noqdo sidii caruurtaas aad dib dambe ugu hanan lahayd wata yaasiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal barnaamijkeenii arrimaha bulshada oo maanta yaasiin marti inoogu ah oo aan uga hadlaynay caruurta Soomaalida ee degmada Torohetan qaarkood laga qaatay markale kulanti dambe waxaan idinkaga tagaa sidaas nabadgelyo maanta oo farsamada inoo fadhisay Ikraan iyo xiriirintana iyada waday markale kulanti dambe sidaas nabadgelyo